gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga iyo wafdigu hogaaminayo waxa madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ku soo dhaweeyay xubno kamida hoggaanka sare xisbiga kulmiye siyaasiyiin iyo xubno kamida golaha wasiirada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii wafdigani ay soo dhameysteen safar ay ugu maqnaayeen dalka Kenya murashaxa xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga ayaa si qoto ugu xog waramay kulamada ay ku qaateen dalka Kenya iyo waxyaabaha manfaca leh ee Soomaaliland uga soo baxay muddo dhowr cisho waxaan ku maqlayn Nairobi oo aan u tagnay safar shaqo waxa hawlaha aanu u tagnay waxa ugu badnaa abaaraha oo ay xukuumadda iyo guddiga abaaruhu hore ugu qayriyeen qayladaan u direen si xoojinteeda iyo ka daba tagga wixii loo ay qoladan qaaranka bixisay caalamku waxay hayeen in la soo dedejiyo iyo qoladan ay naga caawisa doorashooyinka oo ka cawday dib u dhigii doorashooyinka waxa way cabasho ka keenay inkastoo ay guddiga doorashooyinka qaranka oo hawsha u xilsaaran iyo xukuumaddu hore uga hadleen haddana xisbi ahaan xisbi tartamayay anoo kamid ah waxaan ugu tagnay deeq bixiyaasha inaanu arrinta ku xoojino inaan Kenya jabin taageeradii ay sii jireen doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka qaranka waxaan la kulanay safiirro badan dhowr ah ka Mareykanka iyo ka EU-da u jooga Nairobi Jarmalka Deenishka Switzerland UN-ka qolada meesha u joogta Mareykanka iyo dhowr hay'ado kale yar oo badan dhammaantood waxaanu ajendaha ugu culuseen ka hadlaynaa wuxuu ahaa ka abaaraha iyo ka doorashooyinka labadaba jawaab fiican bay ka soo bixiyeen waxa filayaa wixii ay dhaqaalaha degdega ay imanka sameeyeen ay qolada Yurub iyo USAID-ka Mareykanka iyo African Bank-wa qolo waliba lacag bay ku yaboohday dhaqso ah oo way gudaheed in lagu soo dhaqaajiyaa waxaan filayaa weegan waxay ku jireen qaybintii ay dalka geeska Afrika u qaybinayeen inay horaanteedu weegan soo baxdo waana soo diray hay'adahoodii tii doorashooyinka hal is dhaliilo hal aan calaanto doorashooyinku way raagan hal yiraahdo laakiin qolooyinkii taageeri jiray waxay ku ballan qaadeen inay doorashada madaxweynaha kaalintoodii ka qaadanayaan oo aanay dhaqaale ku taageeri jireen ka harin wixii inta ka baxsana waxay ahayd in laga wada hadlo siyaasadda iyo amniga geeskan aynu degannahay gobolkan aynu degannahay gaar ahaan geeska Afrika iyo dhulka ay Soomaalidu degto oo iska xasaas imka badan leh ama hawlo badan ka socdaan nabadgelyada xudhimaya kulay idilo wanaagsan oo xagga abaaraha iyo tii doorashooyinka waanu kaalimid iyo ballan cad